بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا ليال اللهم يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوه قولي وحويا ولا ليال هذا قرآن كما كفرنا because هذا الكلام إنه فصح نقدان إلهي كبر يا دين ونسفي عن ذي فهمتان وحان وضع ما خير كده ما أنت نقول الجرو because إذا العقل قصينا يسمى يوتيوب كان سوق لنا يلا كم ولا لما أي أرضي ذا كلا كادم بيسها فهمان وبيجو جرتو جدنا وين تاون كوسو دوارا مر لبار ولا ليال أو the College of Communication marka kale waa calankeeni wadu jeedaan halkan waa hablaha ka qalin jabin doona ama ka qalin jabiyay ninkan waa sidoo kale waa network administrator-kayga waa just joke waan iska kaftamaya marka maanta waxaan si guda galaynaa hadii la yiraahdo subnetting-kii aan marka hore ka sameeynay labada maad aragtay yani laba video ayaan ka sameeyay mid introduction ayuu iska ahaa runtii oo xisaabta binary-ga iyo maaragta decimal-ka iyo qaacidooyinka loo isticmaalo marka network la bedelayo bitiska iyo waxaas uu ahaa kii labaadna shalay kala si baan ku yar qaybiyay laakiin qayb ahaan baan ku yar qaybiyay moogta laakiin maanta ila socda waa full comprehensive and also maaragtay waa actual subnetting way maanta waa kii runta ahaa way maanta because classy oo dhan waan qaybiyay waxaan ka bilaabay min bilow ilaa iyo dhamaad from the start up to the end ayaan ku magaranaysa waan bilaabay waan dhammaystiray waxa aan scenarios ka aan qoray scenario 6 scenario ayaan qoray oo inoo soo socota 6 scenario aan qoray 6diiba waxay ku dabaqsan yihiin real world-ka ama adduunka dhabta ah marka aad maaragtay aad sisko aad ku shaqo tagtid waxyaalaha la weydiin doono oo dhab ah ayaan meesha ku qoray waxba runtii iskuuleemaanaan hadin class B-da iyo aaduna way inoogu xigi doonaan hadii Ilaahay yiraahdo balse laakiin ay u kala hoostiyay yihiin ayaan soo qaadanay marka subnetting-keenu wuxuu maanta basic ku yahay networking-ka because waxaa jira isaga oo ma garanaysa host ah laakiin host ku base garaysan oo marka ugu horeysa host bitiska host bitiska aad helaysid laakiin maanta subnet bitinka ayaan helaynaa subnet bitiska ayaan helaynaa marka waxa la yiraahdaa waxba runtii kuba kala duwana laakiin midina network bitiska hore loo helaa yani midalan inaad horta aad hesho ay tahay kadibna hostiga aad ku dhifato qaacidadii oo la doonato midna hostiga horeysiinaysa requirement-ga kala duwan maanta requirement-ga ama codsiga la inaga raba scenario aan qornay wuxuu ku base garaysan yahay network oo meedan network la inaga rabo actually hostsna waa ku jiraan laakiin priority-ga waxa leh maanta subnetting-ka ayaa leh laakiin host iyo subnetting labadaba waan isku daray marka waxaan qoray today maanta we will complete waxaan dhamaystiri doonaa class C subnet ayaan dhamaystiri doonaa class C subnet applying inaga ku apply garaynayna into the real world scenario yani midalan dhacdooyinka runta ee ka dhaca amin marka aad shaqada runta wajahdo waxa ku qabsanaya scenario lagu dhiibi karo iyo sida loo qaybiyo oo runtii yani midalan real world waa sida adduunku u shaqeeyo ayaan ku dabaqaynaa maanta magarasa qaacidooyinkeena for example waxna waa iska theory waxna waa marka aad meesha tagto oo shaqada tagto test laga qaaday lagu oranayo qaybi hostiyadan intaas oo hosti baan ka rabnaa intaas oo network address aan ka rabnaa qaacidadii sidii aanu aqaanay sidii ugu quruxda badneed baan maanta u soo bandhigay marka si fiican ha la ila socdo okay marka waxaan nidhi into real scenario waa real world scenario yani midalan dhacdooyinka runta ayaan ku base gareynaa oo yani midalan laga codsanayo marka aad magaranaysa aad shaqo interview meel u tagto using inagoo isticmaalayna the two formula labadii qaacido and I have shown with you before and hore ku siiyay hore aad idin siiyeen inay tusay we will be working waxaan ka wada shaqayn doonaa together inagoo isa suran oo isku mid ah waxaan ka wada shaqayn doonaa inaguna aad la socon doontaan hadii Ilaahay yiraahdo 6 different scenarios 6 scenario ayaan qoray oo classigu runtii ka kooban yahay that course will display and ku soo bandhigi doono different subnetiga kala duwan and different network IDs iyo network ID kala duwan waayahay network ID-gu runtii waa marka lagu yiraahdo 192.168.1.1 is .1.0 sorry 192.168.1.0/24 inta lagu siiyo lagu yiraahdo 0 ga qaybso kaas la yiraahdo network ID subnetting-kuna waa subnet-ka aan qaybsanay in maaragtay waxa aanu qaybin doono waa jajabiski weeyaan scenario-da koobaad hadaba aan baaro hadalka inta badan ka baxo scenario-da koobaad waxa lagu leeyahay our company-geenu bot wuxuu iibsaday one class C network ayuu iibsaday marka
from the service provider wuxuu ka iibsaday service provider waxaa la yiraahdaa kuwan oo maaragtay networkyada internetada aan ka gashan yaa la yiraahdaa guryaha bade waa kan waa la iibiyaa ya misla markay ku soo galiyaan hal network oo saan ayaad leedahay marka ayna ku siiyaan networkan aad ka iibsatay oo 192.168.1.0 balan ku bilowna kan slash kuna waa /24 waan ogeyn /24 ka ayuuna in khaldin because waati aan nidhi kala siida saddexda ugu horeysa ayaa networka marka waa 3 jeer oo min 8 halkii octet ee la arkayba waanigi maalintii inagu yiraahday xasuusataan kii hore waa 8 bit marka octetkii una waanigi iniri dhibic baa u dhaxaysa marka meesha ay dhibic u dhaxayso waa octet ما فهمتين ككلنا وأكتد إميكا 192 وأكتد 168 وأكتد because دبعة ودحية and the same time مركا أكتد كاسينا وحوكا كوبا يسيديد bits حسابتي باينري قواتان هروسو ديغاني وان كو أكلا يساق لفتي سنو والله مير وان نتوك واتي أنا دي كلاسي دا سدح دا وهرسا وان نتوك وما استعمالي كرنا لكن محان استعمالي كرنا زيرو قادم بان استعمالي كرنا مركا /24 هادي آداركتان واكي أنا دي واسدح دي ندوك هايد أو la isku soo dhiftay waxa la 3 jeer oo min 8 waana keenay octet kasta waa 8 bit oo binary ah marka 3 jeer oo min 8 diina waa 24 kiin ba slash lagu fududeeyo waa 24 hadii waxaana u dhigantaa subnetting caadiga kan waa slash notation ba la yiraahdaa slash notation kanna waxa la yiraahdaa waa subnetting caadiga ah wax ku kala garanayseen waxa la yiraahdaa 1 magarasa 255.255.0 ayay u dhigantaa magarasa /24 micnaheedu waxa weeye kan waa 8 bid oo kacsan kana waa 8 bid oo kacsan kana waa 8 bid oo kacsan kana waa 8 bid oo hurda oo wali aan lagu shaqo tagin weeyaan zero bas okay inta hadii aan taa u dhaafo they have two branches company-gan marka wuxuu iibsaday magaranaysaa wax yar ma revision igu celiyo waan ku yar hakaday halkaas company-gan marka uu iibsaday classy network uu iibsaday waa network-gan wuxuu doonayaa they have two branches laba branches ayay leeyihiin branches waxay ku leeyihiin Tottenham magaranaysa branch kalena waxay ku leeyihiin London Bridge ayay ku leeyihiin okay so waxay rabaan waxay rabaan two sub networks laba network ayay rabaan oo laba network bay rabaan iyo 128 hosts laba 128 host ama addressna way rabaan to implement say ugu implement garaya ama magarasa ay u gashaan ugu isticmaalaan their branchiyadooda marka sida qaacidadii wata ayaa mesela scenario-dii ugu horeysay wata marka inaga ay sidii aan u qaybsanayna hadda inoo taala oo maaragtay hadii Ilaahay yiraahdo aan galayna waaya scenario-dii ugu hore maxaa nidhi mar walba waati aan nidhi waxaad qorataan qaacidadan oo ah 128 64 32 16 8 4 2 1 because waati aan nidhi waa 8 hurida uma decimal ku bedelayna waati aan hore u soo nidhi soo ma ahayn okay maanta halkii ma ka bilaabay maxaa nidhi waayahay mar walbana leftiga laga bilaaba la socda leftiga ayaa laga bilaaba mar af Soomaaliga aad iska khaldama raadka laga bilaaba micnaheedu waxa weeye leftiga laga bilaaba ee hadalka iga boobay weey markaas okay intaana kan yar guda galin in correction hadii aan wax yar idin ka soco videogi ahaa TCP/IP-ga videogi labaad ee soo galiyay ahaa waxa hadalku kaga dhacay aan ku halmaamay inuu ahaa in la soo galiyay ma aragtay ina yaani TCP/IP-ga iyo magaranaysa OSI modelku oo TCP/IP-gu dambeeyay iyaan sheegay marka afka ayaa iga xaday ma dambeeynin waxa dambeeyay OSI modelka ayaa dambeeyay TCP/IP-guna walaalayaal uu ka horeeyay inta kaliya way farqigo marka TCP/IP-ga waxa la soo saaray 1970kii magarasa OSI modelkana waxa la soo saaray sidii aad videoga ku aragteen 1970kii intaas waa afeef aan maaragtay videogi labaad inaan niiga sheega aan rabay marka cashirkeena aan ku sii socono marka 128 64 32 16 8 4 2 1 waa tan qaacidadaas waa qaacidada aan ku saleynayno xabadii huruude aan ku kafanayno okay marka waxaan maxaa isiinaya marka mar walbana leftiga laga bilaabo waa sidii imkaan aan idin soo sheegay marka waxa maxaa isiinaya ma garanaysaa laba network waxa laba network isiinaya hal xabaan kiciyay marka hal xaba marka kicisana hal xaba ayaan 128 kiiban xabad hoos dhigtay micnaheedu waxa weeye halka xabo iyo labadii xaba isiinaya iyo laba network isiinaya siduna isiinaya 2 to the power tan ma garanaysaa u dhacday culimaduna inta badan waxay yiraahdaan kombiyuutaradu iyaga laftigooda ma yaqaanaan say u dhacday laakiin wax kasta oo 2 to the power ka 2 lagu dhiftay waa 2 marka 2 to the power 1 markaan idhaahno 2 baa halka soo galaya moogtay 2 to the power 1 equals 2 marka waxa weeye
sababta aan u qaadanay xabadan macnaheedu waxa weeye laban qaadan lahayn hadii ay sida ay ka bedelan tahay sheekadu laakiin xabada waxaan u qaadanay xisaabtan 2 to the power ko iyadoo qaacidada labaadan in qoreen in qaacidadaas inay seegin iya ma aragtay lagu iya ma garanaysa lagu dhifanaya marka maadaama oo lagu dhifanayo ma garanaysa maadaama oo lagu dhifanayo marka hal xabon baan halkan uga baahanahay ma fahanteen hada marka hal xabaan kiciyay 2 to the power ila waxaan u baahanahay waa labo hadii aan halkan laba ka kicino qaacidada way naga baranaysaa afar nadwad bay naga noqonaysaa laakiin halka xabo maadaama ay 2 to the power tan wax kasta oo lagu dhifto ay tahay ma garanaysa ay 2 ay bixinayso oo 2 to the power 1 mar walba ay tahay 2 macnaheedu waxa weeye 2 gaan u baahnayn buu weyn marka xabadaasaan soo qaaday marka waxa xisaabtan la isticmaalayaa saan in sheegay 2 to the power x oo x tuna ay tahay hore 0 iyo waxba inagu soo sheegay laakiin waatan ma garanaysaa yani mesela waa la mid marka 2 to the power x maanta waxay la mid tahay where x waxay la mid tahay subnet bits now subnet bits ka ay la mid tahay because x lama garanayo laakiin waxaan ku dhifanaynaa waa subnet bits ka that's why subnet bits ay la mid tahay inta badan xisaabaadkii qofku dhigta uu garanaya x inay ahay tahay waxaan la aqoon laakiin maanta subnet bits ka la mid tahay because waan ku dhifanaynaa marka waxaan 2 to the power 1 because 1 kanaan kacinay soo ma ahayn equals 2 marka laba network baan sida ku helay waa 2 networks sababta aanu idhinayahay wuxuu ku salaysan yahay maanta cashirkeenu network basic wuxuu ku yahay because network ayaan horumarno requirement-ka la inaga rabay wuxuu ahaaba laba network baa la inaga rabay 2 sub networks buu ahaa marka hore ay fahamteen marka saasa yani waa network basic aanu idhin okay labadii network waan helay mar walba qaacidadaas qoranaysaan taad kicisaan u baa 2 to the power ku soo dhifanaysaan wixii inii soo baxa u baa inii network hostigana sidoo kale maxaanan kicin maxaa inoo hadhan halkan oo maxaa wada offer intii aad kiciso maahayna inta kale ka ofta unbad inta kale unbad xisaabtii 2 to the power ka hadana la soo doonanaysaa tusaale ahaan maxay naga offer 1 2 3 4 5 6 7 soo ma 2 to the power 7 unbaan remote mar walbana 2 to the power 7 markaan waa 1 waxay noqotay 128 ka mar walba waxaad ka jaraysaa laba because waa oo host looma isticmaali karo labada because waa network address iyo broadcast address horena waa inagu soo sheegay marka 128 minus 2 is 126 hosts bay noqotay where x maanta ay tahay host bits maanta host bits ay tahay may fahamteen marka already maxaan helaba waxaan helay labadii network la inaga rabay because maxaan sameynay hal xabaan ka kicinay halkii xabo maadaama oo xisaabtani mar walba laba ina siinayso hal xabo xitaa hadii aan haysanay halkii xabaan soo qaanay labadana ku dhifsanay waxay noo noqotay maad aragtay labadii network bay noo noqotay halkan aan dhiganay todobada kale ay noo dhigay waxaan war maxaan ka xsanay baan ilay waa 1 2 3 4 5 6 7 ma todobadii ma soo qaadayna 2 to the power kii un baa todobadan aad soo tiraysa ku dhifanaysa 2 to the power 7 equals waxay u dhigataa 128 soo ma 128 ka minus 2 umad ka jaraysaa oo broadcasting iyo magarasa network muxuu noqday 126 hostes ayuu noqday marka egastuna yani mesela waa host bits now ma fahamteen halka already marka waxaan diyaarsanay subnetingkiina waan helay waxa kale oo helay maaragtay hostiyadiina waan helay waaye because sababtoo abaan halkan idhay as I told you before sidan hore inagu sheegay 2 has to be subtracted laba waa in laga jaraade from the host bits ka wayna laba laga jara sababtoo waa broadcasting network waa broadcast address iyo magaraysa network since maadaama magaraysa waa intaan af Soomaaliga inagu sheegay waa ni Ingiriisi waqti maadaama they are network maadaama yihiin network iyo broadcast bits network iyo broadcast bits maadaama yihiin wayna ka goynaa and we cannot use mana isticmaali karno iyaga as host uma isticmaali karno okay taasaasan ku soo dhameystiray maxaan laakiin sameeynaa halku network-geeni ka bilaabmaya oo sidoo u bilaabmaya first subnetka ugu horeeya wuxuu noqonayaa 192.168.1.0 because waa subnet 0 mawjada kaasoo noqonaa marka waa subnet ma host la soco waa subnet first subnetkaagu waa subnet 0 wuxuu ka bilaabmaya 0 okay marka laakiin adigu computer markaad gelinayso subnet 0 ma oranaysid waxaad gelinaysaa hostigan aad ka bilaabaysaa sheekada waxaad leedahay 192 first hostiga aad computerkaaga au gali kara waa kaas weeyaan waa maxay waa ka marka muxuu noqonayaa 192.168.1.1 ay garato marka subnet maskiisa aad gelinaysid maxaad gelinaysaa 255.255.128 128 halkay ka timid oo sidee u timid waxay ku timiday waa tii aan niri 8 hadii la isku wada geeyo 8 hadii la isku wada dhifto 256 bay ina siisaa in total
marka 260 in totalka ay nasiinaysay un baad ka jaraysaa xabadii aad kicisay oo host bitiska xabadan aan kicinay ma xabadan kicinay maxay hoos taala ma garanaysaa 128 bay hoos taala marka 128 kan uma ka jaraynaa in 256 128 saas ku soo baxay saasana u dhiganaysa last hostiga kugu dambeeyna waa 192.168.1.126 because from 1 ila 126 waad isticmaalaysaa waxaad isticmaalaysaa computerada computer 126 computer ama 126 router whatever ama switch ama hub yaad gelin kartaa laakiin 107 iyo marka nad maskigiisuna waa sida 225.225.128 waa yani mesela waan mar labaad baan nigu ceshan tusaalaha broadcasting waa maxay laakiin waa 127 inta kale waa isku mid 192.168. maaragtay .1.127 .127 ayuu noqonayaa because 26 baa kugu dambaysa 127 waa broadcasting ma isticmaali kartid because waa wixii ku baxay ku computer kale markuu la xidhiidhayo ama network kale markuu la xidhiidhayo waa wixii yani mesela computer kale markuu la xidhiidhayo waa broadcasting ku baxay weeyaan walaalayaal haddaba sheekada waxaan ku soo celiyay hadiiba if multiply the 8 digits afarta 8 digit of the decimalka ahaa ma garatay okay if multiply hadii lagu dhifto the 8 digit 8 of the decimal 8 decimalka ahay waa kuwan waa 8 decimalka ah hadii la isku dhifto way macnaheedu hadii la isku dhifto waxa soo baxa hadii la isku dhifto okay waayahay sax wa xisaabtii arwaan loo namiya because wax badan ma qor waa kan hadii la isku dhifto 8 digit oo magarasa decimalkan dusha inagu soo tusay it becomes waxay noqonaysaa as I told sidii aan sheegay 256 bay in total isku noqonaysa 256 ka minus baad ka jaraysaa 128 ka 128 kale baa ku soo haraya slashkii oo defaultiga ahaa balaag slashkii defaultiga ahaa markii aan dalbano /24 ahayna uu biiraya hal xabaaya ku biiraysa because kana isbedelay ilaa tan aan qaybinay Soma 128 noqotay slashkiina wuu biiraya okay slash marka uu biiraya muxuu noqonayaa /25 uu noqonayaa because mar walba xaga wax ka biiraanba tan waxba ka biiraya 0 buu ahaa 24 buu ahaa 128 buu noqday wuxuu noqonayaa 25 saa ula socday slash kaasna in hadaba bal fiiri second subnet kuna waa sidii kii hore waa 192.168.128 because kan waxaan soo nidhi .1 magaranaysa .126 buu last hosting computer gelin kartii ahaa in 127 waa subnet mask waxaan ka waraa soo broadcast address that said 128 waa subnet maskigi oo magaranaysa second subnet maskigi siiyeen yani waa subnet maskigi labaadood bilaabaysa because labadan broadcast isku arkaan ma inay isma arkayaan because isku subnet ma aha marka isma arkayaan sababta kan waa 128 buu ka tirsan yahay kana subnet 0 buu ka tirsan yahay marka isma arkayaan ilaa hadhowto la router marka geliso ay isku arkaan routing protocols waxa la yiraahdo saas marka waa kala qoqob Soomaaliya waxa lagu raado waa la kala qoqobay marka qoqobkii labaad ama subnet subnetkii labaad ilaa waa hal subnet hal IP address oo la ina siiyay ayaan ka qoqobaynaa oo magaranaysa laba address oo shaqo isku leeyahay ka dhignay moogtahay marka waxa weeyeen kani Soomaarka kan lama xajoon karo sababtuna ula xajoon kan waxa weeyaan kana subnetkiisu inta kan from here from 1 ila 126 unbaa is arki karta oo isbin garayn karta sababta waxa weey kan wuxuu la xajoonay ninkan waa subnet 0 ayuu isticmaalaya kana subnetin kale oo isticmaalaya oo 128 ah defaultigi markay ahaayeen waxay ahaayeen magaranaysa way iswada arkayeen oo 240 computer isaragtay marka second subnetkii wuxuu ka bilaabmay 128 first hosting wuxuu noqonayaa 129 buu ka bilaabanayaa wuxuuna ku dhamaanayaa 254 buu ku dhamaanayaa broadcastigiisina muxuu noqonayaa 255 and we are done waxa lagu sheegayo kaliya qaacdada in fahamto sida ugu dhifato way lixdii scenario hadda lixdii bit ay lahayd ma aragtay in lixdii bit oo yani kala siida lagu shaqeynayay lixdii xabadii horeysay waan ka saarnay inta kalena taa umay daba socotaa marka
okay taas halkaas ku dhamaatay scenario 2 a company baa bot iibsaday another network address ayay ka iibsadeen from their service provider kii ayay ka iibsadeen networkuna waxa weeye 200.192.190 sorry .10.0/24 macnaheedu waxa weeye waa tii aan nidhi 192 ilaa 223 waan u isticmaali karnaa ma garanaysa asa kala C ila 192 way ka bilaabaysaa 223 way ku joogtay Soomaha marka intii u dhaxaysa waan isticmaali karnaa sidaas weeye marka la yaabina 192 una u arkina kala C inuu yahay marka from 192 ilaa 223 waa la isticmaali karaa ilaa 223 marka kan bay rabaan company-gan mid address-kana iibsadeen marka waxayna rabaan waxay rabaan Forza Networks afar network ayay rabaan iyo 30 host ayay rabaan afar network markii hore laba network baa la inaga rabo requirement-igan wuxuu ahaa laba network ayaa la inaga rabay soo maahay requirement-iga maxaa la inaga rabay laba network baa la inaga rabay laakiin maanta maxaa la inaga rabaa sheekadu way isbedeshay waxaa la inaga rabaa afar network ayaa la inaga rabaa afar network sideen u qaybinayna xisaabtii baan already qornay halkan ay noo tahay marka hore halkan xabaan kiciyay marka waxaan leeyahay xabadan uma ku dhifanaynaa 2 to the power 2 da marka waxaan leeyahay laba ina siinaysa soo ma aha laakiin maanta maadaama afar la inaga doonayo xabadan kaliya laba ina siinaysa 2 to the power 1 da 2 ina siinaysa marka inama siin marka ma helayna da wixii aan u baahnayn moogta oo way naga yartahay laakiin maxaan sameeynaa xabad labaad waa inaan halkan hoos dhigan 64 kiiban hoos dhigan marka labaan soo qaadnay marka 2 to the power 2 ayaa nidhi marka afar network bi ina siiyay saasan network-geeni ku helay already ma fahamtay okay 2 to the power 6 baan nidhi maxaa inoo hadhay marka 1 2 3 4 5 6 lixdaas waa ka off marka mar walba wixii off ka ah eenad ma garanaysaa inad waa ka kacsan aanan ahayn waad soo qaadan waa ku host weeyaan host way ku yihiin waad soo qaadanaysaa waxaad ku dhifanaysaa toodii baad ku dhifanaysaa 2 to the power waa ku dhifanaysaa labana waa ka sii jaraysaa maxaa nidhi 2 to the power 6 minus 2 to the power 6 horta waa 64 moogtaa minus 2 na waa 62 hosts ba halka inaga soo baxay marka 62 hosts-ka first subnet-ka ugu horeeya muxuu noqonayaa 200 190 inta waa isku mid bay ahaayeen inta hore waa isku mid zero buu ka bilaabay because waa subnet 0 soma waa first subnet sidii kii hore baan soo sheegnay waa subnet 0 waa subnet 0 first host-ka muxuu noqonayaa inta hore waa isku mid laakiin muxuu ka bilaabanayaa 1 absolutely computer-kaaga uma baa gelin kartaa 1 soma computer-ka ugu horeeya waxa gelin kartaa 200.190.10.1 ka ugu dambeeyana yaani waxa ka wada ilaa iyo ka ugu dambeeyana muxuu noqonayaa 200.190.10.62 marka waa maxay 62 computer baad isticmaali kartaa laakiin scenario waxa la mid tahay scenario shalay aan sheegnay oo shalay introduction-ka class-ida mar labaad aan igu celiyay iyo la mid tahay marka xabadii aan qaybin ma fahamtay marka kana waa broadcast address oo ma isticmaali kartid isaga ma ogta broadcasting-gan ma isticmaali kartid because waa broadcast waa labadii mar walba laga jiray network net maskigiisuna waa maxay 255.255.192 xagee ka timiday 192 waa tii aan nidhi 256 baa marka la isku wada geesideedan ay noqonaysay 256 kii adigoo haysta labada xabba ku hoos yaalana kacsan isku geyso 128 plus 64 waa 192 saas isku bedelayaa 192gu sidaas ayuu isku bedelayaa okay marka 192 markuu sidaas ku bedel slash-ka maxaa ku biiraya laftigiisa slash-kiina waxaa ku biiraya waa kan /26 ayuu noqonayaa waxa ku biiraya alxabo kala ku biiraya sababta ku biiraysa maxay tahay because waanigi ku markay halkan ka biirto horaba marka ay ka biirto ma garanaysaa inatu marka halka markay wax ka biiraan marka ay halka wax ka biiraanba ilin 0 bay ahayd 25 waxay timaday 128 bay timaday 460 baa loo geeyo mid labaad baa la qaybiyay oo sanadkii labaad baan qaybinayna 192 buu noqday 192 halkan xabad baa ku biiraysa oo 128/126 buu noqonaya ma fahantanada ila soo aan soo sida iyo sidii lamida marka slash-kana by default 24 buu ahaa laba samneed horaan qaybinay labadii samneed waxa ka dhigan tahay micnaheedu xabad baa ku kordhayo 25 inoo tagay hadda afar samneed baan ka gooynay hadda laba kale ayaan ka goynay because inaga tana ina xakunta wixii halkan ka xidhan baan xukmo halkan ka xidhan baan xukmo marka hore xabad baan halkan scenario-dii ugu horeysay hadaan ugu yar noqdo scenario-dii ugu horeysay alxaba ayaan ka xidhan halkii xaba marka /24 ki by default 25 buu ka dhigay markan oo waa ka 25 ayuu ka dhigay
marka halkana 28 buu ka dhigo 0 buu ka bedelay soo ma ahayn sababtu uga bedelayna waa 256 ma ka jarnay 128 scenario labaad laba ayaan kicinay soo ma okay scenario labaad laba ayaan kicinay soo ma ahayn away scenario labaad labaan kicinay soo ma labada 1/24 kima labada loo geeyay 26 saas uu kugu noqday ma fahamtay saas weeyaan marka labadii oo la isku labada marka laba ahaan loo geeyana waa /26 buu ku noqonayaa laakiin marka labadii oo magaraysa 192 iyo 164 kale isku geeyana waa 192 yo kanaad ku bedelaysaa moogtahay oo magara halkan bay kugu sii biiraan 192 weey moogta saas uu noqonayaa second subnet kuna waa la mid inta hore waa isku mid 128 buu ka bilaabanayaa 192 buu first hostiga oo computer gelin kartaa noqonayaa kan waa subnetkii oo ma isticmaali kartid oo 128 computer ma gelin kartid laakiin 192 waad gelin kartaa ilaa iyo 190 baad gelin kartaa 191 waa ka broadcast ma isticmaali kartid 192 na waa networkii oo isagu lahaa 255.128 mar walba intaad kicisay intaad ku geyso un baad xagga ugu dambaysa dhigaysa marka 3255 dhigtid ilaa intan already way ka xidhnaayeenba waxay la mid tahay saddex hore iyo matalayaan laakiin xabada saddex hore ay matalayeen laakiin xabada ugu dambaysa un baad magara ee 0 ga halka marka hore ahayd un baad dhiganaysaa magaranaysaa labadii aad kicisay oo isku geysatay labadii aad kicisay oo isku geysatay baad xagga dhigaysaa mar walba inta halka haddaan markaan taa kicino saddexdan baad ku geysan doontaa waad dhigi doontaa xagga scenario soo socota ku arki doontaa scenario saddexaad total company ga la yiraahdo wuxuu iibsaday one class network ay iibsaday oo la yiraahdo ah 193.10.0/24/24 micnaheedu wuxuu u dhigmayaa sidii hore aan u sheegay wuxuu equal u yahay 255.255.0 by default waa sida micnaheedu waxa weeye kan ma isticmaali kartid kaana ma isticmaali kartid kaan baad isticmaali kartaa marka waa shorthand baa la yiraahdaa waa loo soo gaabiyay moogtahay marka waa loo soo gaabiyay marka waxa weeye kan wuxuu ka tilmaamayaa ka ugu horeeyay ma isticmaali kartid waa network kan labaad ma isticmaali kartid waa ka network kan saddexaad ma isticmaali kartid waa ka network laakiin maxaa isticmaali kartaa ka baad isticmaali kartaa marka mar walba waxay kan wax ugu biirayaan waa kii aan qaybsanay hisaab la socdo company marka wuxuu ka rabaa maadaama administrator-kii aad tahay inaad u qaybiso network-gan 8 subnet inaad u qaybiso iyo 20 host si ay ugu isticmaalaan their different office oo kala duwan faa'iidadii ma qoranayna dhag ayay maxaa leenahay imsan baahanay 8 okay maxaa ina siiyo 8 waxaa ina siiyaan leenahay 128 waan kicinaynaa 64 kan waan kicinaynaa 32 kan waan kicinaynaa saddexaan inta ku soo qaadno maan 2 to the power ka ula tagaynaa maxaa leenahay 2 to the power 3 2 to the power 3 waxa uu dhigantaa ay magaranaysaa 8 subnet bay ina siisay 8 subnet baan haysanaa already subnet kani soo maaha maxay naga dhiman waxa naga dhiman 114 maxaa yaani host inoogu haray oo 0 inoogu haray 0 waxana ilaa wixii 0 iyo host buu ku siiyaa waana ay koolimo inay moogtay maxaa host haysanaa waxaan haysanaa 5 good shantii waxaan u leeyahay 2 to the power 2 to the power 5 baan niri waxa waa 2 minus 2 baan niri 30 host baa la qoysanaa dag we are good to go first subnet muxuu noqonayaa mar walba 0 buu ka bilaabanaya because waa subnet 0 193.10.0 hostiga ugu horeeya muxuu noqonayaa inta hore saddexda waa kuwaas wada teen 1 buu ka bilaabanaya ka ugu dambeeya muxuu noqonayaa 30 because muxuu 30 noqonayaa waa 30 hosti baa la inoo ogol yahay soo ma sax hadda soo fahamteen broadcastiguna muxuu noqonayaa 30 absolutely good ma fahamtay networkiisana muxuu noqonayaa 255.255.224 muxuu 224 u tagay wuxuu u tagay 224 saddexdii aan kicinay ma isku geysanay saddexda waa maxay waa 128 plus 64 which is 192 plus 32 which is 224 kisaas halkaas ku geysanay islaashkiina ilaa saddex baa ku biirtay oo saddex halkan la isku geeyay noqotay saddexdan baa islaashkiina ku biirtay soo ma ahayn saddexdaas ku biirtay by default wuxuu ahaa 24 27 buu kan islaashkiina ay fahamteen say la soo second subnet kuna waa 193 waa isku mid 32 buu ka bilaabanaya 32 buu ka iyo magaraysa subnetinka labaad ka bilaabanaya leerka igu go'ayo murto meesha shaqadan joogay raali ahaad haduu madow soo galo first hosting wuxuu noqonayaa .33 magaranaysaa lastiguna muxuu noqonayaa magaranaysaa in 62 waa maxay waa subnetkii labaad hadda kan moogta 32 ma isticmaali kartid computer ma dhigi kartid ma gelin kartid because waa subnet
لكن فيرس هوست waxaa inagu soo saaray waa inaad computer waxaad gelinaysan garataan oo hadhow toole inuu ku bartiskaraysaan computeradiina gelisaan waxa weeyaan 33 ayuu ka bilowday wuxuu kale ku dhamaaday 62 ku dhamaaday because waa 30 host waa sida 63 waa ka broadcast ma isticmaali kartid and sidoo kalena waa 224 kuna waa 27 because kan buu ka mid yahay mo sida ay and so forward sida ay sidii la mid ah scenario afraad company-ga shall la yiraahdo bot waxay iibsadeen classy network 192.32.32.0/24 ay iibsadeen waxa laga rabaa 16 ma garanaysaa subnet ayaa laga rabaa iyo 14 host good halka man soo istaagina maxaa dhaynaniya waxaana maxay ina siiyay 16 waxayna siiyay 16 kan kici koob kana kici laba kana kici saddex kana kici afar wabarta afarta aan ku fiirin nabaalena 2 to the power 4 okay 2 to the power 4 waa afar 16 binaysa subnetinki already laynaga rabay dag ma fahamtay haddana waxaan maxay noo dhiman afar baa inoo dhiman 2 to the power 4 baan dhigo waa 16 minus 2 afar iyo 10 kiostina saasan ku helay ma fahamteen dag kii ugu horeeyay muxuu noqday marka subnetinkeeni ugu horeeyay muxuu noqday 32.00 ila waa subnet 0 moogtay marka computer ma gelin kartid waa subnet iska ilaaliya wasaan hore inuu sheeg and first hosting muxuu noqday 192.32.32.1 buu ku noqday kii labaad muxuu noqonayaa 14 because 14 ma dhaafi kartid oo 14 host baa lagu ogol yahay 15 broadcast mar walba broadcast ka noqday okay ma fahamtay waa sida subnet maskigiisina muxuu noqonayaa 255.255.240 sababtu 240 muxuu yahay dee halkan ila fiirso afartan oo la isku geeyay maxay noqotay waa 240 128 plus 64 192 plus 32 224 plus 16 240 da markii loo 240 isaasu 240 halka ku helay /28 muxuu noqday afar baan haysanaa by default 24 buu ama afartana way noo kaxsan tahay absolutely right we are almost cool guys yeah we need to clap now ma fahamteen afartan kacni saasu inoogu noqday afartii sabna hostigan kicisana waxay noo noqdeen waxay noo noqdeen hosts good maxaa nidhi marka kan ugu horeeyay ma isticmaali karno ka labaad waa kow waa yaani mesela waa first hostigi ka ugu dambeeyna waa waxa weeyaan ma garanaysaa in last hostigi waa sidii imkaan soo sheegay kan waa broadcast inaga yahay in subnetkiisuna waxaan ka wada subnet maskigiisuna waa 240/kuna/28 absolutely cool second subnetkuna waa sidii oo kale maadaama uu kan 15 broadcastiga yahay 16 subnetkii kala ka bilaabanayo labada subnet isma bin garan karaan waa aniga inay because waa la kala jajabiye oo waa la kala qoqo ay fahamtay ka kala muxuu noqonayaa 194.32.32 waa subnetkii labaad ka bilaabanayo waa first hostigi oo subnetkii second subnetkii 17 ilaa iyo 30 ma isticmaali kartaa koob iyo 30 broadcast ka noqonaya ma isticmaali kartid one is the same thing because wala kii un bay ka wada tirsanayna marka subnetku waa isku wada mid noqotay and so forward so on salaaya salaamada umbu u sii shaqeyneen scenario number 5 you have one class C baad haysataa network and you want waxaa rabtaa inaad yeelatid afar iyo 2 subnetwork inaad yeelatid ayaa rabtaa iyo 5 host for each subnet kasta waxaad rabtaa inaad u yeelatid ma garanaysaa 5 computer 5 host inaad yeelatid hostis waa 5 computers ama 5 whatever router or whatever ay doonaan laakiin waxaad rabtaa inaad subnet badan aad maanta halka ka heshid waaye maxaa sameeyna networkuna waa network la iibsanayna oo company iibsanayna waa maxay ama aad haysatid waa 205.205.0/24 sidii hore ila socon asad xabadii baan qaacidadii ma soo wadnaa halkan soo dhiganay qaacidada maxaan kicinaynaa waxa leena war maxaa ina siiya 2 iyo 30 network bal aan ku eegnaa leena tan waa 1 2 3 4 5 haddii aan 5 ku dhifanaa leena 2 to the power ku maxay noo noqonayaa 2 iyo 30 absolutely we are cool 2 to the power 5 ma garatay equal is 32 networks iyay noo noqotay soo ma okay 2 to the power okay taas waa sax weyn maxaa markaa ino ma garanaysaa oo already network-geeni waan helay because 5tan aan kicinay uma la soo doonanay ma garanaysaa 2 to the power ki aan ku dhifanay marka maxaan helay 2 to the power 5 waa 230 network 230 ki waan secure garaynay maxay noo dhiman 3 ba iyo 0 wixii 0 ina waa noo host soo ma aha aanan kicin okay the 2 to the power 3 un baan dhilan waa 3 halkan moogtay waayo 2 to the power 3 muxuu noqday
8 buu noqday minus 2 laba laga sii jaray 6 hoostiis baan haysanaa. Absolutely we are nice and neat now, yeah, absolutely. Okay, first hostigeen muxuu noqonayaa 2452 saddexda hor isma bedelayaan. First subnet keenu waa subnet 0 oo mar walba 0 uu ka bilaabmay waa saan sheegaynay. And first hosting muxuu noqday 205.205.1 absolutely. Last hosting muxuu noqday 205.205.205.6 ma fahamtay. Okay, broadcasting oo because kaasa ugu dambeeya maadaama oo lix host lagu ogol yahay lixda kaas uu ka ugu dambeeya. Broadcasting waa 7 ma fahamtay. marka waxa weeyaan kana wis bedelayaayo 248 buu noqon sababtoo 248 uu noqonayna xisaabtii ma isku soo geynina imsa noo kicsan waa 1 2 3 4 5 maxay mid walba ku beega tahay waa 128 64 log 192 32 log 224 16 log 248 log because 8 kuna inoo kacsan 248 saasay ku timiday ma fahamtay slash kina wuxuu inoo yimid slash 29 buu inoo yimid because shantan lagu darayaa afartii aw ahaa ma fahamteen kaas waa sida scenario ugu dambeysay hadaba fiiri Selby Center waxay leedahay waa kala schoolkeeni weey has 64 branches afar iyo 60 branches ay ku leedahay across the UK order. They both waxay iibsadeen one class network ay iibsadeen from their service provider ay ka iibsadeen waxayna ka rabaan the number kuna wuxuu yahay ay iibsadeeni ama address-ku ama network-ku 195.16.16.0/24 ay iibsadeen. They want you waxay ka rabaan adiga to subnet inaad qaybiso this network into subnetworks inaad u qaybiso into 64 subnetwork afar iyo 60 subnetwork ayay ka rabaan and also waxayna ka rabaan waxayna ka rabaan laba host inuu beer subnet inuu yeesho laba host inuu yeesho ayay ka rabaan baan qaacidadii baad soo dhiganaysaa halkan 128 64 32 16 8 4 2 1 qaacidadii ma soo dhigatay. Okay, imsan kiciyo bal waa taas aan soo kama mid umad ku soo daraysa moogta waxaan kicinaynaa 1 oo 2 oo 3 oo 4 oo 5 oo 6 baan kicinaynaa war waxa leenahay in lixdaas haddaan ku fiirino 2 to the power 6 muxuu ina siinayaa 64 absolutely waan dhannaana 64 baa laynaga rabay moogta 2 to the power 6 which is 64 absolutely what did I do 64 subnet 1 64 subnet kiban waan haysanaa we are all right. maxaa marka 64 keeni waa secure garan maxaa laynaga rabo 64 maxaa laynaga rabo laba host wala maxaa bay noo dhaan host bitiski waa maxaa waa laba. Okay, soo qaad baan idin labada maxaan ku dhifanaa 2 to the power 2 maxay na siisaa 2 to the power 2 waxay na siin jirtay waa 4 afar ma afartii minus 2 maxay noo dhaan laba host bam labadii host halkaas ay ku dhanna subnetkeen ugu horeeyay mar walba waa 0 waad ogtiin kii ugu horeeyay subnetka first hostiga ugu horeeyay waa hal last hostiguna waa laba saddex broadcast buu ka noqonayaa kana 252 buu ka noqonayaa 255 subnet weegina 255.252 muxuu 252 ku noqday waxa la isku soo geeyay intan waxa la yiri 128 plus 64 192 plus 32 224 plus 16 240 plus 8 248 plus 4 252 ma haysataa slash kina waa kordhay waa 8 because the lix baa loo geynayaa uma aragtay waa kordhay 30 buu noqday lixdan baa loo geynayaa 24 lixdan baa loo geynayaa wixii hurda looma geynayaa wixii kacsan baa loo geynayaa waa 30 kala siidu 30 kama dhaafto waa kala siidu 30 kama dhaafto dhammaan maanta xoog ayaan isku gudayay inaan siinay kala rafagareeyo ama inay qeexo si fiican ay ku dhigo haddii ilaahay yiraahdo qiwaaq waxaad arkaysaa waxoogaa inuu yar kordhay marka 38 daqiiqo oo tagay marka waxa la inaga rabaa bal haddii wana comment bal ku soo qoro oo deeba haddii aad xitaa ay waxa ma garanaysaa aad dalbanaysaan dheeraada comment ku soo qoro mar leeyahay casharka waan dhigayaa haddii ilaahay yiraahdo comment ba aad la idinka rabaa idinka oo mahadsan wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.